barnaamijkeenan xogta dahsoon waxaynu ku soo qaadanaynaa qaar ka mid a qaab dhaqameedyadii siyaasadeed iyo kuwii bulsho ee uu lahaa madaxweynihii hore liibiya mucamar al-Qadaafi. أغبياء والإسرائيليين أغبياء. لماذا؟ حنقنعكم. أولا الإسرائيليين اتركوا الضفة الغربية وقطاع غزة 20 سنة ولم يهتموا بها. lagu yaqaanay hal-adeegnimo iyo isagoo had iyo goor ka baxa mowduuca laga hadlayo hadday dhan kastaba tahay sida go'aamadiisa, hadalladiisa, khudbadihiisa iyo xitaa muuqaalkiisa. kaasina waa boqorkii boqorada Afrika iyo maayarkii madaxda Carabta, waana hogaamiyihii Liibiya iyo taliyihii kacaanka Mucamar al-Qadaafi oo la magac baxay naanayso iyo xilal fara badan si uu u gaadho hogaamin dhab ah. sanadkii 1964 ayay ahayd markii uu dhisay golihii saraakiisha ee ugu magac daray saraakiisha xoreynta, kuwaasoo door ballaaran ku lahaa inqilaabkii lagu sameeyey xukunkii boqor Idris Sanusi, waana inqilaabkii uu markii dambe Qadaafi ugu magac daray kacaankii furashada. isagoo guushii inqilaabka fulintiisa laga gaadhay ay xafiiska madaxweynaha Liibiya keentay Mucamar al-Qadaafi oo dhisay nidaam dawladeed oo u bixiyey jamaahiiriyadda Liibiya, kaasoo aan ahayn nidaam boqortooyo iyo mid jamhuuri toona, laakiin uu u dhigay qaab ay shacabku toos ugu xidhan yihiin madaxweynaha, isagoo muddo 40 sannadood oo dambe xilkaasii hayay tan iyo intii ay kacaanyahano gudoodsan kursiga ka tuureen oo dileen sanadkii 2011. Mucamar al-Qadaafi waxa uu suura gashay inuu muddada dheereed ee xukunka hayay uu taariikhda isku calaamadiyo, isagoo had iyo jeer munaasabadaha la isugu yimaado ee caalamiga ah ka muuqan jiray oo hadal adaygii lagu yaqaanay iyo ka soo horjeedkiisii haymanada reer galbeedka ka cadin jiray, waxaana uu ahaa nin go'aamadiisa siyaasadeed iyo khudbadihiisu ay muran badan dhaliyaan. أنا ما بعرف المترجم كيف ترجم القنبلة هذه مثل يصعب ترجمتها بالإنجليزي يعني، لكن المساعدة كان فيها هي to add insult to injury. Mucamar al-Qadaafi waxa uu qayb u lahaa inuu ka baxo dhammaan hanaanada borotokoolka jira, waxaana aynu tusaale u soo qaadan karaa kuwa soo socda. boqor xasankii labaad ee Morocco ayaa buuggiisii xusuus qorka waxa uu ku reebay in shirweynihii madaxda Carabta ee Algeria lagu qabtay in Mucamar al-Qadaafi uu soo xidhay galoofyada cadcad ee gacmaha, taasoo uu la jeeday inaanay gacantiisu taabanin gacmaha madaxda kale oo uu arkayay inay dhagarqabayaal yihiin oo gacmahoodu dhiig leeyihiin, isagoo boqor xasan sheegay inuu isaga si gaara ugu diidanaa salaantii uu hore uga qaaday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Shimon Peres. waxaa kaloo jirtay in kulan madaxeedka Carabta ee magaalada Ammaan sanadkii 2001 aanu Qadaafi sidii caadada u ahayd hadaf ka dhiganin Israa'iil, laakiin xilligan waxa uu weeraray madaxdii ka soo qayb gashay kulanka oo uu ku sifeeyey inay Carabtu tahay dad dambeeya oo xilligoodii dhammaaday, isaguna uu hayaami doono dhanka wadamada Afrika. waxaase uu sheegay inuu kula sii dardaarmayo arrin anfacaysa mustaqbalka, taas oo ah qadiyadda reer Falastiin. taladaas oo uu ku macneeyey in haddii la waayo labada dowladood oo kala ah Israa'iil iyo Falastiin ay lama huraan tahay inay dhistaan mid ay ku midaysan yihiin oo loo bixiyo magaca Israa'iil, dowladdaas oo fadhiisan doonta buu yidhi booska aanu annagu Liibiya ahaan ka bannayno jaamacadda Carabta maadaama aanu idinka tegayno. mid ka mid ah go'aamadii ugu yaabka badnaa ee uu lahaa Mucamar al-Qadaafi isna waxaa xusuus qorkiisa ku reebay mid ka mid ah gacanyarayaashii siyaasadeed ee Jamaal Cabdinaasir, kaasoo soo wariyey in kulanka aan caadiga ahayn ee madaxda Carabta sanadkii 1970 ku qabsatay magaalada Qaahira oo ahaa kulan lagu eegayay dhibaatadii ka dhexdhacday Falastiin iyo Urdun, uu markii kulanku daba dheeraaday ee labadii dhinac ismari waayeen uu Qadaafi cabaystay bastooladiisa oo damcay inuu toogto boqor Xuseenkii Urdun iyo Yaasir Carafaad labadaba, laakiin waxaa qabtay oo isku duubay Jamaal Cabdinaasir oo marti loo ahaa. mar kale ayuu haddana u holaday Qadaafi inuu labada hogaamiye dilo, taasina waxay keentay in Jamaal Cabdinaasir uu hoolkii shirarka ka saaro Yaasir Carafaad iyo boqor Xuseenkii Urdun ka hor inta aanu Qadaafi soo gelin hoolka shirarka. dhacdada dhibaatada ahayd ee Urdun iyo Falastiin ka dhacday xilligaas oo ay kumanaan qof xilli kooban ku dhinteen ayaa xalinteeda oo kulan madaxeedkaasi ka mid ahaa waxay sabab u noqotay geeridii Jamaal Cabdinaasir oo soo jeedkii faraha badnaa ee uu ku jiray muddadii dhibkaasi la xalinayay oo ku keenay in wadnuhu istaago.
mucamar al-khadaafi waxa uu ku eedeeyey ariel sharon ra-iisul wasaarihii hore israa'il inuu basaas u yahay falastiiniyiinta maadaama uu had iyo goor samaynayo tallaabooyin keenaya inay falastiiniyiintu waxyeeleeyaan dad reer israa'iila waxaana uu yidhi sidee buu ariel sharon ku ahaan karaa nin reer israa'iila oo dhaba haddii uu sababayo dhimashada dadkiisa. waxaa iyana ka dambaysay kulan madaxeedka carabta ee magaalada dimashq oo uu khadaafi dusha ka fuulay madaxdii carbeed kuna eedeeyey in iyagoo sariiraha ku dul jiifa ay tiifiyada ka daawanayaan dilalkii loo geystay madaxweynayaashii ciraaq iyo falastiin sadaam xuseen iyo yaasir carafaad waxaana uu xilligaa u saadaaliyey hogaamiyaashii carbeed ee shirkaa ka qayb galay oo uu ka mid ahaa isagu inay ugu dambaynta iyaguna la kulmi doonaan masiir la mid ah kaa la mariyey sadaam xuseen. dhanka kale mucamar al-khadaafi waxa uu gaadhay guulo la taaban karo intii uu xilka hayey sida ay soo bandhigtay xarunta daraasaadka caalamiga ee dalka kanada waxaana guulaha ka mid ahaa inuu hirgeliyey barnaamijkii guryeynta liibiya kaasoo xaq u siinaya muwaadin kasta inay dowladda u dhisto guri uu ku noolaado waana waxyaabihii ballanqaadada ahaa ee khadaafi uu ku sii qoray buuggiisii cagaarnaa waxaana uu arkayey inaanay ahayn deeq laakiin ay tahay arrin oo muwaadinku xaq ugu leeyahay dalkiisa. sidoo kalena muwaadiniinta waddankaasi waxay heli jireen daaweyn bilaash ah qiimo kasta oo ay ku kacaysana waxaa bixin jirtay dowladda iyadoo hannaankii adeegga caafimaad ee shacabka loo qabanayay lagu tilmaamay kii ugu wanaagsanaa dalalka carabta iyo qaaradda afrika. sidoo kale waxaa bilaash ahayd waxbarashada iyadoo xitaa waxbarashada dalka dibaddiisa ay dowladdu ka bixin jirtay ardayda iyadoo qiyaasta dadka waxbartay ee waddankaasi ay ugu dambayntii gaadhay 89% tirada guud ee dadweynaha waxbarashada gaadhay. waxaa kaloo jirtay inay xukuumaddu maalgelin ku samayn jirtay dadka doonaya inay dhulbeereed sameeyaan iyadoo loo dhammaystiri jiray adeegyada lagama maarmaanka oo ah hirgelinta beertaasi sida dhulkii uu beeran lahaa oo bilaash lagu siiyo guri looga dhex dhiso meesha beertu tahay iyo agabkii kala duwanaa ee mashiinada iyo gaadiidka beeruhu ka mid ahaayeen oo la guddoonsiinayey iyadoo ku dhiirigelinta bulshada waddankaasi ee dhanka horumarinta beeruhu ay ahayd mid si abaabulan loo waday waxaana qayb ka ahaa hirgelintii webigacmeedkii uu khadaafi dhex mariyey saxaarihii waddankaasi. daryeelkii ay bulshada waddankaasi dowladdooda ka heli jireen waxaa kaloo ka mid ahaa in hooyo kasta oo umusho la siin jiray lacag u dhigmaysay $5,000 Maraykanka ah waxaana xusud mudan in barnaamijyadan horumareed aynu xukuumadda khadaafi ka soo sheegnay ay jiritaankooda dadka dalkaasi qaarkood hoos u dhigayaan halka qaar kalena ay ka markhaati